dir waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah. laba jeer oo hore ay soo martay maxkamadeynta 7 qof oo mid maqan yahay. fursadda habraaca ee jeedinta waxa iska lahaa qareenada oo sharciga u ogolaa in ay soo bandhigaan cadeemaha iyo markaatiyaasha ay heli karaan. markii ay ka soo dhamaatay ayaa loo gudbay dhamaadka habraaca dacwadda oo ah in dhinacyada dacwadda ay gunaanad sameeyaan. xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo jeedinta eedda gabagabadeeda u wakiishay xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa ku dheeraaday sababta uu u geeriyooday Axmed Mukhtaar Saalax Axmed Dowlo. maxaa loo dilay maxkamaddan rabaa inaan u sheego maxaa loo dilay marxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay waa wax cajiib dambi ma gelin gabadha kiisku ka bilaamay la sheegayo asaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday kaliya waxaa loo dilay oo kaliya maxaad qoyska hintira la yiraahdo oo beesha jaraweyne ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay. sidoo kale xafiiska ayaa weydiistay maxkamadda in la mariyo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen eedeysanayaasha. waxaan codsanayaa in maadaama maxkamadda horteedan ka cadeynay dambigaas cidii geystay iyo wixii lagu geystay iyo sidii loo geystayba aan ka hor keenay cadeymo iyo markhaatiyaal ku filan maxkamadda horteeda aan keenay sida uu qabo qodobka iyo sida ay qabto shariicada islaamka in lagu qaado qisaasta ay mudan yihiin oo ah in lagu xukumo dil. maxkamaddu way maadsanta. abukaata cali xalana oo wakiil ka ahaa eedeysanayaasha ayaa codsaday in maxkamadda ay sii deyso eedeysanayaasha marka laga reebo midkood oo maxkamadda ka hor cadeeyay dambigiisa. marxuumkii lagama haayo inuu dhahay aweesa laga yaabaa inuu maalin oo dhibaato ii geysto ama nafsadeyda uu salbado lagama haynin xataa. marka taa waxa waaye waa coincident waa arin dhacday waaye go'aanka maxkamadda iska leh. waxaan leenahay eedeysanayaashan labada kale maamooyinka in xurriyadoodii la siiyo maantana ay reerahoodii u tagaan si xur ah maxkamaddu